waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagi baryaba awbax laga waraabsho waagi wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم halkan waxaan ku duubaynaa maadada xisaabta fasalada shanaad ee dugsiyada cigaal casharkeena koowaad ee maanta aynu qaadanayna waxa weeye waa wareega saddex xagal ka sida loo raadiyo ayaynu doonaynaa inaynu barano maanta wareeg markaynu sheegno wareeg waxa weeye waa wadarta dhinacyada shaxanku ka kooban yahay oo la soo geeyay hadduu saddex xagal yahay saddexda dhinac ma isu geyn hadduu afar gees leeyahay afarta dhinac ma isu geyn hadba shaxanka lagu siiyay dhinacyadiisu inta yihiin ayuun baynu sugeynayna daba casharkeena maanta waxaan ku baraynaa sida loo raadiyo wareega saddex xagalka wareega saddex xagal waa wadarta saddexdiisa dhinac oo la isku geeyay hadba saddexdiisa dhinac inta yihiin maadaama wareegu yahay wadarta fogaanta shaxanka ku xeeran waxaanu leenahay saddex xagalka wareegiisa waxa lagu helayaa saddexdiisa dhinac oo la isku geeyay ayuu noo noqonaya tusaaleyna kooda waxa la yidhi raadiya wareega saddex xagalkan dhinacyadiisu yihiin 4 sentimitir midkiiba yahay waxaanu naqaanaa wareega qaacida lagu helo wareega saddex xagalku inay tahay saddexda dhinac oo la isku geeyay dabeedna waxa weeye saddexdii dhinac oo isku geyn jabtay noo soo baxdayna waa 12 sentimitir marka wareega shaxanka guud ahaan haddaynu saddex xagalka sheegnay shaxanku noocu doonaba ha noqdo wareegiisa waxa lagu helayaa wadarta dhinacyada ay shaxankaasi ka kooban yahay hadba inta ay tahay layligeena koowaad waxa la inaga doonayaa wareega saddex xagaladan saynu soo saarno mid walba wareegiisa saddexdiisa dhinac ayuun baynu isu geyn doonaa casharka qaybtiisa labaad waxaanu ku baranaynaa bedka saddex xagalka ama area of triangle saddex xagalkeeni waa kan wuxuu leeyahay sal oo qaybta ku fadhiya iyo joog otomahaas maadaama saddex xagalku yahay leediga barkii bedka saddex xagalka qaacidada lagu helaa waxa weeye salka oo lagu dhuftay jooga oo loo qaybiyay laba ayaa lagu helaa bedka saddex xagalka marka su'aalaha koowaad waxa la yiri xisaabi bedka saddex xagalka joogiisu yahay 12 sentimitir salkiisuna yahay 13 sentimitir halkan wixii la nasiibay inuu ku qori jooga saddex xagalku waa 12 sentimitir salkuna waa 13 sentimitir waxa la inaga doonayaa waa bedkii waxa laana furfuris bedka saddex xagalka waxa lagu helaa salka oo lagu dhuftay jooga oo loo qaybiyay laba dabeedna waxaan sameeynaa bedkii baynu qori waxaanu ku bedelaynaa salkii iyo joogii labana waynu u qaybin marka 13 iyo 12 haddaan isku dhufano waa 156 laba haddaynu u qaybinana jawaabta inoo soo baxaysa waxa weeye bedka saddex xagalku waa 8 sentimitir laba jibaaran layliga la idinka doonaya arday waxa weeye saddexdaas su'aalood baa laga doonaya mid walba bedkii baa laga doonaya maxaa lagu siiyay salkii iyo joogii baa layna siiyay waaye casharka qaybtiisa saddexaad waxaanu ku baranaa raadinta sida loo raadiyo salka iyo jooga saddex xagalka mar walba suuragal maaha in bedka lagu weydiiyo mararka qaar ka baa bedka lagu siinayaa salka ama jooga mid ahaan lagu siin si aad ka kala soo saarto wadsaalahan ila eegad xisaabi salka saddex xagal bedkiisu yahay 40 sentimitir laba jibaaran joogiisuna yahay 8 sentimitir waxa la ina siiyay bedkii oo 40 iyo joogii oo 8 waxa la inaga doonayaa salkii waxaanu leenahay furfuris salka waxa lagu helaa laba lagu dhuftay bedka oo loo qaybiyay jooga dabeedna waxaan sameeynaa waynu ku bedelaynaa laba lagu dhuftay bedkii oo 40 iyo joogii oo 8 markaanu laba 40 ku dhufano oo 80 joogii oo 8 markaanu u qaybino salka saddex xagalkaasi waa 10 sentimitir waxa kaloo layna weydiiyay jooga wala dayleeg
بدكي با لينا سيو 40 سنتيمتر oo laba jibaaran waa isla kanuun saaleeyni hore salkiina waxa weey waa 10 imika waxa laga doonayaa jooga waxa leenahay jooga waxa lagu helaa laba lagu dhuftay bedka oo loo qaybiyay salka waxa leenahay jooga wax la mid yahay laba lagu dhuftay bedkii oo 40 iyo joog salkii oo ah 10 40 hadaan laba ku dhufano waa 80 80 hadaan 10 u qaybinana waa 8 ee layligeena saddexaad waxa la inaga doonayaa labada hore waxa la inaga doonayaa salka ka saddexaadna waxa la inaga doonayaa jooga waxa la siiyay ka hore bedku waa 30 jooguna waa 5 kan bedku waa 12 jooguna waa 2 bedku waa 16 jooguna waxa weeyaan 4 sentimitir waxa la inaga doonayaa joogi casharkeena maanta halkaas ayuu inooga eegyahay intaanu casharka cashar lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh